waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horeysa min laba darajo in askarta min laba darajo liiskooda la soo qoro oo la siiyo meeshan waan u malaynaa markii saddexaad inay tahay oo saan oo kale ay khawaarijtu ay u soo weerareen 19 2019 2020 iyo shalay oo ugu dambeysay intana baktigooda laga qaaday geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isugu jira 14 Oktoobar iyo Gorgor 17aad ayaana sababteeda leh waxaan idinkugu hambalyeynaa oo idinkugu bishaareynaa maanta guushaasad gaarteen in madaxweynihii qaranku maanta oo mataqaanaa sanaantiina oo igu soo faro yiri adoon tagin meesha ha istaagin meel kale xalay waxaan joogay meel yar Nuur Dugle waa ka soo tagay waxay ujeedadoona wax kale ma ahayn inaan maanta idin la wadaago waxa yeelay waxay tahay guusha aad gaarteen ayaana intaas aanan u arag haba yaraatee wax culaysa oo aan dareemay inaysan jirin qarankiini dawladdiini madaxweynihii ayaa ugu weyn marka niyadda qalbiga oo leedinku hayaa waa leedin og yahay waxaad gasheen saddexda jeer ee ay soo weerareen nimanka khawaarijta intii nooga shahiiday ilaahay ha u naxariisto dhimashada sharafta leh ama geerida sharafta leh waa mid shalay ad baktigooda isugu geyseen banaanka aad soo dhigteen waana waxay kuwaana qaadan doonaan cadawgu ama mataqaanaa nimankan khawaarijtu ay kuwaana qaadan doonto waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horeysa min laba darajo in askarta min laba darajo liiskooda la soo qoro oo la siiyo waxaa kaloo idin ballan qaada iyadana in dalacaadaas mar alla markay dalacaadaas aan qorno wixii ku xiga inaan qiimayno kala saraynta alif ilaa saddexli laga gaarayo oo darajo kasta ninku uu lacagteeda ku qaato saraakiisha ka tirsan labadan guuto isbishal ururada halkan meesha ku jira waxaan rabaa iyadana waxaan la wadaagi doonaa madaxweynaha gor walba waxa guusha qaadanaya ninka dulqaad badan oo adkaysi badan waxaan qabaa marka inaad dulqaadateen inaad u adkaysateen cadawgiina meesha aad dhigteen ummadda meel walba laga arkay waxaan aaminsanahay maanta guushaasad gaarteen dalka oo dhan khawaarij meelay joogtay waxa ku dhacay niyad jab dhulka especially markaan niraano hadda dhulkan ka imido laga bilaabo ruunigood iyo cadcaday iyo dhulka u dhaxeeya kulli waa bixin hal ninka ma joogo waxaana waaye guul darrada ku dhacday waxay saameynay kan jooga meesha ugu shaas waxaan rabaa marka raggi geystay guul darradaas dhigay ama baday nimanka la yiraahdo khawaarijta waxaan leenahay aad u mahadsantiin qarankuna abaalkiina waa gudi doonaa dalkan ninba maalin waxuu soo maray dagaalo badan uu soo maray inta aad nooshihiin dhiiggiina ha ku nasteen ha ku baraareen ha ku nabadgaleen shacabki walaalihiin waalidkiin ehelkiin dhiiggiina ha ku nabadgaleen kolba iyadoo la dhimanayo aad u mahadsantiin waa isla qadaynaynaa difaaceennana noo adkeeya